أيها الإنسان مهلا انتبه، هذا مقال الصدق غير مشتبه. لقد أتيت ناصحا ومرشدا، عساك أن تلقى بهذا الرشدا. وحين رمضان قبلنا لبا شيء با ugu fiican mid waa inaynu dembiga iska maydhno, midna waa inaynu darajaadka kor u korro, ajarka aynu shaqaysanayna inaynu badinno, mustaqbalka u dhiganno. dembigii hore inaad iska maydhidoo nadiifisid ramadaan waad awoodi kartaa. inaad ajarka biirisana markaad intaa maydhana waad ziyaada عن الذنوبات شقيسته نواد وودي كريسا. إذن عملك أنت تسوي دبا أجر كيس وين لهذا أنت صا أنت الذنوب تمسح السبع على بعضه ولا مركز صلاة هاجي هدي اللي سوق جاي وده دمين وين وشمع هذه مركز لو قد راي هدنا وده ميلي كري ويدي رمضان تاضو هدي في عناته يضا ميلي سوي حين تهرو تاجويدي. ولذلك haddii 12 bilood salaad khalkhalaynu soo tukanaynay ama jimce imaamkoo taagan una aynu soo fuulaynay soo galaynay masaajidka, aan isku dayno bisha tan inay noqoto bishii aynu tirtiri lahayn wixii camal inaga tagayo dhan, wixii dunuub inaga dhacday horoo dhan bil aynu tirtiro. oo xadiis saxiixa wuxuu leeyahay kullu camal ibnu aadam يضاعف له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عمل كستو قفك والسمايستو الله لبالله إياه طبعا شير إلا إيا تضوب غلو شير من فضل الله سبحانه وتعالى. صونك مو يعني بالي أما صونك استقى أنا أسكالي بإلهي لو يسوى قار isagu markaa culimadu waxay leeyihiin ana leeda idaafadatani waxay macnaynaysaa bay culimadu leeyihiin sirta ah inaanu iyadu ku jirin waxyaabahan uu xadaysan yahay ajarkooda ee ajarkeeda ilaahay u baqaranaya. walidalik ba mufassiriinta qaarkood waxay ku fasiraan aayadan quraanka ilaahay leeyahay inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. shahru sabrina waa la yiraahdaa, shahru sawmna waa la yiraahdaa. ودي الصبر دمانتي بقف كل إيمانية إنه عن المعاصي وعن الشهوات كصومه، إنه على الطاعات كصبره. هي وحي مشاكل يا آلام يا مقادير سوى قاعدين كصبره. هذا بقى بشتني وبالآن ربنا لبا وح إنا نهله كو إن لهي دم بقى نافه. هذا ما هي إنه يد الدم بكرر سنة dadka qaar baa bisha tan musalsalaad iyo balaa bishii uu dambiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba. ma aha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo, bilaad marna hurudow marna ma aha. waa bil qofka muslimka ay ijtihaad ku jiro, waa qofka muslimka ay waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayay inuu gaarsiiyo. muxuu rabaa in ilaahay dambiga ka maydho, wuxuu rabaa ajar inta ugu badan la inuu shaqaysto, wuxuu rabaa inuu ku biiro min cutaqaa'ih kuwa ilaahay naarta ka xoreynaya. habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bisha tan oo dhan. wadaaka fi kulli layla buu nabigu yidhi habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya. inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyay ee inaad dembi kororsato maaha. walidaalika baa caaisha markay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow haddiiba ilaahay haleeshiyo aan ku beegmo habeenkaasi laylatulqadriga maxaan idhaahdaa bay ku tidhi. nebigu wuxuu yidhi waxaad tidhaha allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu can. ilaahu dembigayga rogdhe, ilaahu icafi. waxaad ku ducaysata habeenkaasi ha noqoto buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, ilaahu cafi. haddaba ayuha alaxiba warkaygu wuxuu ku kooban yahay bisha tan diyaargarowgeennu ha noqdo sidii aynu ilaahay ugu noqon lahayn, rabbi ugu xidhmi lahayn,
aakhiro ay u noqon lahayn taargetkeenna ugu weyn iyo saynu cadaabkeeda uga badbaadi lahayn janno ilaahay u weydiisan lahayn oo u geli lahayn bisha tani markaa ha noqoto daal badani waa inuu kaa muuqdaa oo ah fa idaa faragta fansab ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa inaynu ku daallo ee bil kaslaamnimo badan ay naga muuqato laziness bilaynu qaadna maaha bil dadku caajisa waan soomanay qof walba idhaa nafta ka sii baxdo ee waa bil aad u baahantay waa tababar baad galaysaaye 11 biloodoo dambaad usii sahay qaadanaysaa 11 horena dembigoodaad iska maydhaysaa waa bil aad usii saha qaadanayso cafaariiddii waaweyneed ee abaalisadii baa lagugu soo dayn doonaa markay dhammaataye saad isaga celin lahayd haddaad traininka ugu sii jirtaa ibliisaanu dibku ugu duufsan lahayn iyo kooxdiisii idan haddaad bisha lafteedii dayacanto dee waad wada dayacmaysaa si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay man xurima khayruha faqad xurim ama uu aamin u leeyahay jibriil oo leh ninkay ramadaan u soo gasho fansalakh oo ay dhammaato walam yugfar lahu uu leeyahay afka ciidda ha daro nebi maxamedna waa aamiin leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inta gaadha bishatan ee asiibtee ka faa'iidaysata ee ilaahay ugu dhowaata in rabbi inaga yeelo من دل على خير فله مثل أجر فاعله